بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح وناكسان دقيستيال وتلاذا تاريخدنا يكون بيغانتا كوبدا بيش كوباد سنة لابكون يساقالي طبانكا قضبادا ساكا راديو مقدشو عودكا جمهورية الصومالي ويدين هيانا وحاقوا وين مدحوينها جمهورية فدرالكا الصومالية مدني محمد عبد الله فرماجو أيام ميلمريي ميسانية الدولة يكون شقينا سنة لابكون يساقالي طبانكا oo dhawaan ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sameysay soo kabasho dhaqaale oo xawli ah sanadkii tagay iyadoo ay weheliso maamul wanaag maaliyadda dalka oo isbedel lagu sameeyay munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynay madaxweynaha cusub ee dhawaan la doortay ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya in ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa ka dhacay magaalada tan Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya أخبارات كعالم كان دقيستيال وحاكم إذا هيدا عنا أدون كجمعية قرمها كدا عيسى WFB أياكو إذا يسفل لاجد حوثيين تأدل كيمن إن الحسدين عنا جرجار الله قطلا جلي دتك عرادو هلاكيين يكسوغن قيبة كم إذا وضن كاس يمن waxaan u baahannahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii muwaadin ogeyn mudin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo howlgalo guul darraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeenu guusha way inagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan intaana dhageystayaal waa qodobadii warkayaga raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ugu door karoona u diyaar garoobay isagoo dhan oo kulliidan anbaqaado anigo Cali Cabdulqaadir Cali insha Allah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa meelmariyay miisaaniyadda dawladda Soomaaliya ay ku shaqeynaysa sanadda 2019 حد لا soo dhaafay ayaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxay cod aqlabiyada ay ku meelmariyeen miisaaniyadda dawladda sanadda 2019 oo ay gudbisay wasaaradda maaliyadda ee dalka war qoraal oo ka soo baxay aqalka madaxda Soomaaliya waxa indhaha soo mariyay wariyahayaga Muqtaar Timacad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo miisaaniyadda dawladda ee sanadda 2019 kadib markii ay ansixiyeen golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay xildhibaanada golaha shacabka sida xilkasnimada leh ay u guteen waajibaadkooda dastuuriga ee kaga aadan qiimeynta iyo gorfaynta miisaaniyadda sanadlaha ee dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ku ansixiyeen codka aqlabiyadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo dul istaagay kororka miisaaniyadda dawladda Soomaaliya ayaa faray xukuumadda inay sii xoojiso sare u qaadista dardargelinta adeegyada bulshada kobcinta fursadaha shaqo ee dhalinyarada Soomaaliyeed iyo xaqiijinta ammaanka muwaadiniinta Soomaaliya kobaca dakhliga dalkeena waxa uu marqaati ka yahay miro dhalka qorshaha ku aadan ama ku qotoma la dagaalanka musuqmaasuqa sida daraadeed waxa isbedel muuqda inuu ka sameeyna dhinacyada adeegyada bulshada ammaanka hirgelinta kaabayaasha dhaqaalaha si dadkeenu u helo nolol wanaagsan ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay miisaaniyaddan ay marqaati ka kacayso dadaalka wadajirka ee shacabka Soomaaliyeed ay ugu jiraan sidii dib loogu dhisi lahaa dalkeena Soomaaliya miisaaniyaddan qaybta ugu badan waxay ku suntan tahay dakhligeena gudaha taasi oo muujinaysa kartida aynu u leenahay iyo inay naga go'aantahay dalkeenu la jaan qaado dalalka caalamka ee hormaray isla markaana aynu gaarno maqaam iyo maamuus uu dalkeenu mudan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa uga mahad celiyay wasaaradda maaliyadda dalka iyo dhaqaalayahanada Soomaaliyeed ee diyaarinta isku jaangoynta miisaaniyadda waxtarka u leh dalkeena iyo dadka mahadsanidkaasina wuxuu wariyahayaga Muqtaar Timacad oo inoo soo koobay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo ku wadan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo qalinka ku duway miisaaniyadda dawladda sanadda 2019 Soomaaliya ayaa sameysay ka soo kabasho dhanka dhaqaale oo xawli ah sanadkii tagay iyadoo ay weheliso maamul wanaagga dhinaca maaliyadda ee dalka isbedel lagu sameeyay warbixin arintaas la xiriirana wariyaha Cabdi Shakuur Cali Axmed ayaa qalinka u qaatay
dunidan aanu ku noolnahay dal walba waxaa lagu qiimeeyaa horumarkiisa heerka dhaqaalihiisu uu la egyahay oo ku xiran dakhliga ka soo gala gudaha iyo dibadda. dowladda Soomaaliya oo ka duulaysa hiigsigaasi ayaa sanadkii tagay ee 2018 waxa ay diiradda saartay kordhinta dakhliga gudaha. go'aanka kordhinta dakhliga gudaha muusan ahayn mid fudud. wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa xoojisay hanaanka canshuur qaadista taasoo sababtay korarka dakhliga gudaha. wasaaradda maaliyadda 2018 dhammaan hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya waxay kala wareegtay canshuurihii ay qaadi jireen si loogu shubo qasnada bangiga dhexe ee wasaaradda maaliyadda meeshana looga saaro wax isdabamarintii ragaadisay kordhinta dakhliga gudaha. wasaaradda maaliyadda waxa kaloo isla horaantii sanadkii 2018 ay bilowday qaadista canshuuraha macaashka iyo iibka. tallaabooyinkani waxay keeneen in bil walba ay soo xarooto in ka badan 2,300,000 dollar oo dheeri ka ah lacagihii soo xaroon jiray tan iyo bishii Juun ee bartamihii sanadkii 2018. sidaasi la mid ah qasnada bangiga dhexe ee dowladda waxaa soo galay in ka badan 8 milyan lacagihii la filayay bishii Sebtembar ee 2018 waxaana ay tusaale u ahayd dadaalka wasaaradda maaliyadda ee kordhinta dakhliga. wadahadalka deen cafinta Soomaaliya ee ka dhaxeeya hay'adda lacagta adduunka iyo wasaaradda maaliyadda ayaa horumar laga sameeyay. intii lagu guda jiray 2018 Soomaaliya waxay ka gudubtay wajiyadii koowaad iyo labaad ee barnaamijka deen cafinta caalamiga ah dhinta maamulka maaliyadda dalka iyo kordhinta dakhliga gudaha. sidoo kale wajiga koowaad ee heerka saddexaad ee barnaamijka deen cafinta Soomaaliya SMB3 ayay ka gudubtay wasaaradda maaliyadda sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda lacagta adduunka. hay'adda lacagta adduunka ayaa mas'uuliyiinta Soomaaliya ku amaantay sida ay uga soo baxayaan shuruudaha hor yaalla deen cafinta Soomaaliya iyadoo kooxda hay'adda lacagta adduunka u qaabilsan wadahadallada Soomaaliyana ay rajo badan ka muujiyeen in Soomaaliya 2019 ay guul weyn ka gaarto wadahadallada deen cafinta. guulaha Soomaaliya ay ka gaartay kordhinta dakhliga iyo deen cafinta waxay keeneen in Soomaaliya loogu yaboho 100 milyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu xoojiyo miisaaniyadda qaranka. lacagtaas oo si toos ah loogu shubayo bangiga dhexe ee qaranka. lacagahaasi waxaa ka mid ahaa 140 milyan oo dollar oo bangiga adduunku ugu yabohay Soomaaliya 2018 iyo 100 milyan oo euro oo midowga Yurub ay ugu deeqeen Soomaaliya. hornaantii bishii November ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa xariga ka jaray xarunta labaad ee wasaaradda maaliyadda dalka taasoo loo dhisay si loo haqabtiro baahida dhinaca xafiisyada ah ee howlwadeennada wasaaradda maaliyadda. korarka dakhliga iyo isbeddelka dhaqaalaha waxa uu wax badani ka bedelay miisaaniyadda dalka. November 2017 bishii November 2018 wasaaradda maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya waxay horgeysay miisaaniyadda qaranka ee 2019 oo dhan 340 milyan oo dollar kana badan 66 milyan miisaaniyaddii qaranka ee 2018 oo ahayd 274 milyan. waxaana miisaaniyadaasi golaha shacabka ay ansixiyeen 30 Diseembar 2018. bixinta mushaaraadka shaqaalaha dawladda iyo ciidanka ayay si joogto ah ugu guuleysatay wasaaradda maaliyadda 2018 si la mid ah sanadkii ka horeeyay ee 2017. qorshaha soo daabicidda lacagta cusub ee shilin Soomaaliga oo ay iska kaashanayaan bangiga dhexe ee qaranka iyo wasaaradda maaliyadda ayaa horumar laga sameeyay. xawliga uu ku socdo korarka dakhliga gudaha oo lagu daray hagaajinta maamulka maaliyadda ayaa la aaminsan yahay in sanadaha soo aadan Soomaaliya ay ku hogaamin karto inay ka maaranto deeqaha caalamiga ah oo waqtigan qayb ahaan ay ku tiirsan tahay iyo in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay. mahadsanid Cabdishakuur. kulan ballaaran oo lagu soo dhaweynayay laguna taageerayay madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhawaan la doortay ayna ka qayb galeen mas'uuliyiin ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Raxmo Yuusuf Jimcaale ayaa warkan faahfaahinaysa. waxay ahayd munaasabad lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen. waxaa soo qaban qaabiyay ururka haweenka gobolka Shabeellada Hoose iyadoo ay ka qayb galeen sanatarada aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin kale. munaasabada waxaa lagu soo bandhigay waxyaabaha ay qaniga ku tahay gobolka Shabeellada Hoose iyagoo madaxweynaha ka codsaday in la nabadeeyo deegaanadaasi. Saare Xasan Faarax oo ku hadlaysay hafayeenka ururka haweenka Shabeellada Hoose ayaa sheegtay inay u hanweyn yihiin madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen.
waxaan kaa sugnaa waxa waaye isbeddel badan oo aan ka weynay dadkii hore jaale madaxweyne lafta gareen adiga iyo farmaajo gacmaha haysta waxaan rabnaa ummadan inaad nolol geysaan gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre waxa uu sheegay inay garab taagan yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed waxaan ku shaqeynaynaa waxay tahay madaxweynaheena uu ku shaqeyn doono waxa ay tahay inuu nabadoonna inoo noqdo oo nabadiina uu nagala shaqeeyo gacanna asoo nabadii ku shaqeynaya gacanta kalena inuu cadawgi ku qabto Senator Naciima Ibraahim Yuusuf iyo Senator Xuseen Cali Xaaji oo munaasabada ka qayb galay ayaa ku baaqay in ay muhiim tahay in la helo doorka haweenka ayna garab taagan yihiin bulshada reer Koonfur Galbeed madaxweyne waxaan ku leenahay soo dhawo annaga hadaan nahay madaxweynaha Soomaaliyeed hadaan sanadkii nahay oo soo dhaweyneynaa waxaan ku rajayneynaa insha Allah biidnillah in kala uu doortay inuu Ilaahay ku fududeeyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay mudane Cabdicasiis soo dhawo reer Shabeellaha Hoose aad iyo aad ay ku taageersan yihiin aniga waxaan ahay senator Soomaaliyeed oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed qaasatan Shabeellaha Hoose aguulaysan Shabeellaha Hoose madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa qadka telefoonka uga qayb galay munaasabada isaga oo ka mahadceliyay dadkii soo agaasimay kulankani waxa uuna sheegay inay yeelan doonaan kulamo badan oo looga hadlayo xaaladda gobolka Shabeellada Hoose jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden ayaa soo dhaweeyay horumarka laga sameeyay dadaalada nabadda beelihii dhawaan ku dagaalamay qayb ka mid ah gobolka Sool Maxamed Cabdulqaadir Daahir ayaa warkan inoo soo diray kulan balaan oo isku yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Sweden ayaa si weyn loogu hambalyeeyay madaxdii islaadiintii ku guuleysatay damintii shaqooyin ka taagnaa deegaanada Talax Saxdheer iyo Dhumay oo ka tirsan gobolka Sool waxaa loogu baaqay bulshada deegaanadaasi in ay adkeeyaan nabadeynta maadaama ay yihiin dad walaalo ah qaar ka mid ah odayaasha iyo culmoodiinka goobtaasi ka hadlay ayaa waxa hadalada ka mid ahaa runtii nabadu waxaan u direynaa baaq dadka deegaanada adiga ee ku dagaalamay waxaanu leenahay nabadda la qaatay ee meel la dhigay ha la adkeeyo waxaan ku codsanaynaa walaalahay in aysan mar dambe dhicin insha allahu biidnillaahi kariim wax dambe oo ummad ah oo rag ah oo gabdha ah oo inagaga dhinta iyo dad dambe oo inaga qaxa iyo dhibaato meesha ka dhacday inaysan dhicin baan ka codsanaynaa insha allah wax garadkooda iyo kulligoodba nabadayntii ka dhacday Dhumay gobolka koonfurta gobolka Sool iyo nabadayntii kale ee ka dhacday degmada Talax in dadka deegaanku ay adkeeyaan nabadaas goboladaas ama degmooyinka laga gaaray isla markaasna mahadcelintu ay noqoto in la adkeysto nabadda kulanka ujeedadiisu laba qodob bay ahayd bogaadin farxad gelin dagaaladii ka dhacay gobolka Sool barigiisa iyo koonfurtiisa oo juhdi badan ummadda Soomaaliyeed maamuladooda iyo salaadiintooda ay geliyeen ilaahay la gacan qabtay dabadeedna ummadii halka ku dagaalantay maanta ay si farxada iyo wada jira oo aad moodeen inay weligood dagaalamin markii aan aragnay waxay ka fursan weyday in jaaliyadu ay la farxdo oo ay ku bogaadiso qodobka labaadna wuxuu ahaa dadkii juhdiga geliyay ee ka shaqeeyay sida la sheegay madaxweynaha gobolka Itoobiya iyo salaadiintii ka timi Soomaaliya iyo Itoobiyaba oo aan la kala hadhin waxba ku bixiyay naftooda iyo maalkooda iyo lacagtoodaba ay ku bixiyeen in loo mahadceliyo kulankan oo isku jiro duco iyo taageerada walaalaha wada deegaanada Sool ayaa laga soo saaray baaq nabadeed oo ku wajahan walaalaha ku dagaalamaya deegaanada Hiiraan iyo Galgaduud Maxamed Cabdulqaadir Daahir raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Stockholm Sweden ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa waxa ay degmooyinka u abaabulayaan ka qaybgalka horumarinta nabadda iyo isdhexgalka bulshada Aamine Xuseen Maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaysa
ujeedka kulanka ayaa ahaa dhiirigelinta haweenka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir si ay uga qayb qaataan nabadda isdhexgalka bulshada iyo dardargelinta doorka haweenka ee kaga aadan qorshooleedka sanadka 2019 kaasi oo ay haatan ka mid yihiin gabdhaha waxbartay. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwe Jawaahir Baarqab ayaa ku dhiirigelisay haweenka inay la yimaadaan dadaalo lagu xoojinayo horumarka haweenka degmooyinka gobolka Banaadir. la ururinayo waa lacagta 192,000 oo la rabo gabdhaha danyarta habeenii maalin wadada xaaqaya habeenii maalin meeshan taagan jaamacadihii ka baxay aqoonta leh ama in xafiis loogu dhiso ama wixii idinku aad garataan oo maamulka degmada iyo idinka wada go'aamisaan oo gabdhihii wax loogu qabto haddaan bulshada lacagtii laga keenin haddaan maamulka degmada la taageerinin degmada waa bari waxay ahaan doontaa degmooyinka ugu dambeeya laakiin haddaad wax iska ururisiin oo dhaqaale idinku aad keensataan inta annagana laga rabay waxay noqonaysaa degmooyinka ugu horeeyay ka mid noqonaya marka degmooyinaaba 10,000 ama 5,000 ay u dhimantahay degmooyinka qaarna waxa laga yaabaa inayba 40,000 ay keensadeen waxaan rabaa marka inaad ku baraarugtaan lacagtaas taalo in loo baahan yahay lacag degmada laga rabo oo gudoomiyaha degmada la rabo inuu soo ururiyo lagana keeno shacabka degmada waa bari gudoomiyaha degmada waa bari Mahad Cilmi Cali ayaa ugu mahad celiyay haweenka abaabulka ugu jira in ay ka qayb galaan horumarka bulshada waxaan rabaa inaan iraado maama jawaabtaada iyo dadaalkaaga iyo garab istaagaaga adinka ayagoo ah dad wax qabsa ama volunteer ah ku shaqeeya haddana dhac lahayn anaguna intaasan tihiin halkaas oo laga sii laba jibaara la rabaa hadduu ilaahay yiraahdo dowrkiinu inuu sanadka cusub waji cusub la yimaadaan rajaynayna maadaama biireen soo sidaas ma ahan aamin xaaj xuseen maxamed warbaahinta qaranka muqdisho jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Koonfur Afrika ayaa si diiran u soo dhaweeyay arday Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay wadankaasi wariyaha warbaahinta qaranka uga soo waran qorshe ayaa warkan inoo soo diray ardaydan oo ka koobneed ilaa 5 arday oo isugu jira kaaliyaal macallimiin iyo arday ka tirsaneed jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda Val oo kamid ah jaamacadaha ku yaala dalka Koonfur Afrika ayaa soo gaaray magaalada Johannesburg oo qaybsanaha arrimaha waxbarashada iyo dhaqanka safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika ardayda wax ka barata dalkan iyo ururka dhalinyarada ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Johannesburg waxaana kadib loo galbiyay xaafadda Soomaalidu degan tahay halka oo kulan casho ay kula qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ku nool dalkan Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg injineer Cusmaan Cabdullaahi Cusmaan oo kamid ah ardayda deeqda waxbarasho ka helay jaamacadda oo ku hadlay afka ardayda ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo dhaweynta jaaliyadda waxaana ka warbixiyay qaybaha kala duwan oo ay ka kooban yihiin anagu afshanteedu waxaan nahay waa engineero ha kala duwanaadan departmentsku si waxa loo badan yahay civil engineer anigu waxaan water and environmental engineer ninkan waa civil engineer ninkan waa construction engineer ninkan waa civil engineer ninka geeskana waa electrical engineer hal field anaga maqan oo aad u jeclaa oo ah mechanical engineer oo aan at the end markaan wadanka ku laabano aan rabnay wadanku maadaama laba webi uu leeyahay aan rabnay anaha at the end inaan macna hal mashruuc oo ah dam project inaan sameeyno because dam project wuxuu u baahan yahay civil engineer water engineer electrical engineer as well as mechanical engineer qaar kamid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida ugu horeeya gudoomiyaha dhalinyarada Maxamed Cumar Talyaani oo madasha ka hadlay ayaa kelmado soo dhaweyn iyo dhiirigelin isugu jirta goobta ka jeediyay horta ku soo dhawaada marka hore Koonfur Afrika anoo magaca guud dhalinyarada ku hadlayo waxaan filayaa maanta waxay ka dambeeyeen inaad daladeena qayb ka tiidiin qiyaastii haddaan walaalaha Soomaalidu waxay dhahdaa cilmi caanigii laga ma dhargo kaaliyaal barayaal ay ahaayeen ama macallimiin ay ka ahaayeen jaamacadda ummadda xaqiiqdii cilmiga inay ziyaadsadaan ay wadankana u imaadeen barnaamijkan iyo kulankan lagu soo dhaweynayo dhalinyaradeena maasha Allah waa arrin aad u wanaagsan waana soo dhaweynayaa dhalinyaradana waxaan leeyahay soo dhawaaya wadanka sidii la idinka soo sheekeeyay dad badan oo iga xogaalsan idinka soo sheekeeyaan fursado badan baa ka jiro ugu dambeynna Cabdi Xalan Xirsi oo qaabilsan safaaradda dhanka waxbarashada iyo dhaqanka ayaa sheegay in deeqdan waxbarasho ay ku timid xiriir afgarad ah u dhaxeeya jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo jaamacadda Val waxaana soo socday muddo dheer waa fursad labaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa mahadcelinayo tiimkan inay yimaadeen baasaboorkii Soomaaliyana ku yimaadeen scholarship xiriir laba jaamacadood ay sameeyeen laakiin aad u dhabanaa oo intaan ka xusuusto 2 jeer miya mise 3 jeer oo dhacay macnaha scholarship kaasi intii loo fargareeyay laakiin finally 6 qof baa u qornayd inay ku yimaadaan oo 3 electrical engineer iyo 3 civil engineering ah
ardaydan ayaa inta ay joogaan dalka koonfur afrika waxay diyaarin doonaan heerka labaad ee waxbarashada jaamacadda ayadoo sidoo kalena qaadan doonaan tababaro iyo aqoon kororsi la xiriira macalinimada. cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe warbaahinta qaranka soomaaliya johannesburg koonfur afrika. dhegeystayaal raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu warkan idinkaga imanaya akhbaaraadkii caalamka. fallaagada xuutiyiinta dalka yemen ayaa lagu eeday inay leexsadeen cunno gargaar oo loogu talagalay dadka shacabka ku nool goobaha colaaduhu ay halakeeyeen ee ku yaala dalkaasi. hay-adda cunnada adduunka ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa u qaabilsan WFP ayaa ka dalbatay fallaagada xuutiyiinta yemen inay joojiyaan leexsashada cunnada gargaarka ah taasi oo si weyn ay ugu baahan yihiin dadka shacabka ku nool deegaanada ay ka taliso fallaagada. xog uruurin ay samaysay jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ayaa lagu sheegay in dadka rayidka ee ku nool caasimadda dalka yemen ee sanca aanay helin cunnadii gargaarka hayada loogu talagalay. WFP waxay intaa ku dartay in gawaari xamuula oo si sharci daraaha cunnada ugu daabuleen goobaha lagu qaybin lahaa raashinkaasi oo markii dambena lagu iibiyey suuqyada ama la siiyey dad aanay xaq u lahayn. fallaagada xuutiyiinta ayaanu ka jawaabin eedeyntaasi balse waxay horey u beeniyeen inay lexsadeen raashin gargaara. qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaadda dalka yemen ay dhalisay in 20 milyan oo ka mid a shacabka dalkaasi ku nool cuniyari ay wajahayaan halka kala baro barna aanay hubin helitaanka cunnada gelinka xiga. 13 Diseembar sanadkii tagay ayaa fallaagada xuutiyiinta iyo dowladda Yemen waxay ku heshiiyeen xabad joojin ay garwadeen ka ahayd jamciyadda qurumaha ka dhacaysa ee ku waadaneed magaalo xeebeedka istiraatiijiga ah ee Xudayda taasi oo muhiim u ah gaarsiinta gargaarka shacabka dalkaasi Yemen ku nool. Sabtidii la soo dhaafayna fallaagada xuutiyiintu waxa ay sheegeen inay dekada kala baxeen ciidamadooda ayna ku wareejiyeen ilaalada xeebaha ee maxalliga ah balse afayeen u hadlay qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in arintaasi aanay waxba ka jirin amaba uu shaki geliyay. afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in fallaagada xuutiyiintu ay fulin waayeen heshiis ah inay furaan marin bini'aadameedka ee wadada isxiriirisa Xudayda iyo Sanca kaasoo muhiim u ah in markaasi dadka shacabka gargaar ay helaan waxaana ahayd in xadii la soo dhaafay heshiiskaasi uu dhaqan galo balse ma jirto ayay tiri jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. warkii dunida aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya oo inala socodsiinay anigoo Cali Cabdulqaadir Cali waa inaga inta waadna ku mahadsantihiin dhageysiga warka raadiyo muqdisho tan iyo warkan warka xiga amaan Allah haatana aan idinku wareejiyo farsamayaqaan Cabdisalaan Yar